Waan idin salaamay idlahaantiinba waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin meel walba ood joogtaan. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo sideed ugu barataa luuqad qaab aan ahayn dhaqan. Mar walba waxaan maqalnaa luuqaddu waxay u baahan tahay afar xagal ahna inaad isu dheelitirto. Dhageysi, hadal, akhris iyo qorid. Adiga oon afartaa xagal isu dheelitirin ama aan wada samaynin sideed ugu baran kartaa luuqad qaab aan dhaqan ahayn. Waxaan kuu wadaa tabo iyo xeelado kuu fududaynaya luuqad walba oo dunida doonaysid inaad baratid. Bogasho wacan. Maxaad u baranaysaa ilaa heerkeedsa ka doonaysaa luuqadda inaad baratid? Mar walba oo sababta aad u baranaysid ay tahay mid awood leh, waxaa kuu fududaanaysa luuqadda inaad dhaqso baratid. Ilaa heerkeedsa ka doonaysaa. Cilmiga maamulka waxaa la yidhaahdaa wax aadan qiyaasi karin ma maamuli kartid. Maskaxduna waa sidoo kale. Waxa aysan maskaxdu qiyaasi karin si fiican uma maamuli karto uma maarayn karto. Marka heerka aad ka doonaysid inaad xadidid wuxuu kuu sahlayaa barashada luuqadda. Heerka aad doonaysid ma waxaad doonaysaa inaad suuqa kaga soo adeegatid? Ma waxaad doonaysaa qofka ku hortaagan inaad fahmi kartid adna aad u sheegan kartid wax walba ood u baahan tahay? Mise waxaad doonaysaa luuqadda inaad soo afjarto ood soo afmeerto ood ku noqotid khabiir luuqaddaas? Aamin. Wax aadan aaminin kama lib keeni kartid mana baran kartid. Waqti gali, dadaal gali, samir u samir luuqadda. Luuqaddu waxay u baahan tahay dadaal iyo waqti inaad galisid una samirtid. Joogtaysidna maalin inaad baratid maalina ka tagtid maaha. Waa inay markaad go'aansatid luuqad inaad baratid. Waa inaad maalin walba ugu yaraan waqti haddii aadan heli karin xataa. Nus saac maalinkii inaad joogtaysid 10 daqiiqo 15 daqiiqo kolba waqti intii kuu saamaxda inaad joogtaysid. Waxaan laga harin mar baa la gaadhaa. Haddaad wax joogtaysid waxaa hubaala sanad laba waxay doontaba ha kugu qaadato. Muhiimaddu waxay tahay luuqadda inaad baratid. Farqiga u dhaxeeya baalalayda ama balanbaalista iyo shinnida. Shinnidu waxay ku degtaa ubax waxayna ka qaadataa faa'iidada oo dhan way ku xasishaa ilaa inta ay ka dhamaysanayso. Balanbaalistuna ama baalalayduna waxay ku degtaa ubax qurux badan markaba horay bay uga sii duushaa waxay ku degtaa mid kale kolba mid bay ka duushaa mid kale ay ku degtaa. Sida si le'eg marba luuqad ha bilaabin ku ekow hal luuqad maxaa yeelay maskaxda inaad iska wareerisid maahan. Hal luuqada ku ekow taa markaad baratid. Luuqadaada koobaad luuqadaada hooyo maaha. Luuqadaada labaad eed baratid waxay kuu sahlaysaa dhammaanba luuqadaha kale ee ka dambeeya. Maxaa yeelay waxaad ogaanaysaa ood aaminaysaa inaad tahay qof baran karaya luuqad kale. Maxaa yeelay qof walba adduunyada ku nool wuu yaqaanaa luuqadiisa hooyo. Wuxuu u baahan yahay luuqada labaad inuu barto. Taasaana mid adag. Markuu qofku luuqada labaad barto ta saddexaad waxay u noqonaysaa mid ka fudud caqabaadkii uu wajahay luuqada labaad intii uu baranayay. Bara maalin walba 5 ilaa iyo 10 eray. Markaad xoogaa joogtana dib ugu noqo erayada aad horey u soo baratay ama aad horey u soo xifdisay si ay maskaxda u degaan caqliga ama garaadka ama maanka qarsoon ay u degaan. Maanka qarsoon wuxuu wax ku qaataa ku celcelis badan. Marka erayga markaad maanta 10 eray haddaad xifdiso 10 bari kadib ama isbuuc kadib waxaa laga yaabaa inaad ka xasuusatid 2 ama 3 eray. Markaad 10 bari joogtid ama isbuuc joogtid erayada horey u xifdisay haddii aad dib ugu noqotid waxay si fiican u degayaan maanka oo waxay noqonayaan kuwa aadan abid ilaawin. Maanka ama caqliga wuxuu u qaybsamaa 2 qaybood. Caqliga qarsoon iyo caqliga soo jeeda. Waxaan rajeynayaa inaan muuqaalka kan xiga aan kaga hadli doono caqliga qarsoon iyo caqliga soo jeeda iyo farqiga u dhaxeeya iyo sida ay u shaqeeyaan. Insha Allah. Dhagaheenu waxay maqlaan in badan waxaa ka saameyn badan waxa indhaheenu qabtaan. Erayga haddaad erayada gooni u baratid waxaa laga yaabaa inaad ilowdid laakiin haddaad soo gadatid bugaagta erayada iyo sawirku ay isku qoran yihiin si fiican bay maskaxdaada u degaysaa oo ilaawi maysid. Eray walba ood soo martid ood sawirkiisa horey u aragtay waad xifdinaysaa. Haddii xataa aadan haysan bugaagta erayada iyo sawiraanta sida ciyaalka yararka markay wax baranayaan oo kale kalaaska koobaad labaad oo kaleeto waxaa isugu ag qoran erayga iyo sawirka si ilmuhu waxaan uu u xifdin karayo ugu fududaato xifdisku. Haddii xataa aadan haysan bugaagta noocaasa internet-kaad ka heli karaysaa. Google-kaad galaysaa kadibna erayga markaad ku qortid waxaa kuu soo baxaya sawirkiisa. Dhiiranaan luuqaddu waxay u baahan tahay dhiiranaan. Haddaadan wax khaldin oodan wax jajabinin oodan wax qalqaloocinin oodan marmaroorinin sidaad ku saxaysaa ood ku baranaysaa.
cabsida iyo xishoodka waa inaad meel iska dhigto haddaad tahay qof doonayo inuu wax barto. waxbarashada oo dhan dhammaanba uma baahna cabsi xad dhaafa iyo xishood xad dhaafa. sax waa loo baahan yahay xishoodka mar walba, laakiin maaha xishoodka xad dhaafka ee kuu diiday inaad wax baratid ama aad isdhahdid ama aad wax khaladaa. u ogolow naftaada, adigu bini aadan baa tahay, ma tihid malaa'ig, ma tihid. marka naftaada u ogolow inay khaldanto, maxaa yeele khaladaadkaaga baad wax badan ka baranaysaa. imtixaanada waxbarashada marka hore waxaa lagu siiyaa darsiga, kadibna waxaa laga qaadaa imtixaanka. laakiin noloshu marka hore waxay ku siisaa imtixaanka, kadib imtixaanka khaladaadka aad samaysid baa darsi ka qaadataa. marka u ogolow naftaada inay khaldanto. ha isbarbar dhigin qof kale oo adiga kaa sarreeya level ahaan ama heer ahaan. qof kaa sarreeya ha barbar dhigin adiga. adiga isbarbar dhig. shalay halkaad joogtay, maanta halkaad joogtid, iyo heerka adigu berrita aad hiigsanaysid. maxaa yeele haddaad qof 10 sano luuqadan kusoo jiray aad isbarbar dhigto, adiga waxaa kugu dhacaya hankaagaa hoos u dhacaya oo niyad jab baa kugu dhacaya. sidoo kale luuqadda aad doonaysid inaad baratid, waddanka looga hadlo inaad aadid qasab ma ahan. sax way ku caawinaysaa markaad joogtid luuqadda aad doonaysa inaad baratid waddankii looga hadlayay. dhagahaasay kaaga dhacayso luuqaddu inta aad ku adeeganaysid, aad u maqlaysid, caawimaad badan bay ku siinaysaa. laakiin hadda adduunyadu way horu martay. barigii hore cilmiga waa loo safri jiray, waqti aad u badan baa lagu bixin jiray. laakiin hadda dunidu way horu martay. haddaad heli karaysid iskuullada lagu dhigto luuqadda, iskuullada lagu dhigto waa inaad gashid. haddii kale xataa ood waddanka aad joogtid ama magaalada aad joogtid aadan ka heli karaynin iskuulla fiican, waxaad ka baran karaysaa online-ka. online-kaad ka heli karaysaa koorsooyin fiican, macallimiinta nooca aad doonaysid, iyo dad khibrad badan u leh oo luuqadan ku barayaal fiican. ama waxaad ka baran karaysaa haddaadan hanti ahaan aadan awoodin, kharashka kaaga baxaya online-ka aad ku bixinaysid ama iskuul aad ku dhiganaysid, waxaad ka baran karaysaa si free ah aad ugu baran karaysaa oo bilaasha youtube-ka. youtube-ka waxaa lasoo geliyaa luuqado fara badan, macallimiin dhigta oo kusoo gudbisa barahooda bulshada sida youtube-ka ama facebook-ga, meelaha kala duwan kusoo gudbisa casharaantooda, dadkuna ay ka qaataan oo ay ka bartaan. dad badan baa halkaa ka bartay ma garanaysaa luuqado. dadku way ku kala duwan yihiin qaabka iyo waqtiga waxbarashada. waxaa laga yaabaa waqtiga qofkan uu isagu wax barto ee wuxuu bartaa maskaxda ay si fiican u galaan inaysan adiga ahayn waqtigaad adigu baratid. marka dadku qaabka iyo waqtiga way ku kala tagsan yihiin. qaabka qofka naasiba inuu wax ku barto ama ereyada ku xifdiyo ama uu ma garanaysaa luuqadda ku bartay, adigu way ka duwan tahay qaabka aad ku baranayso. labada waqti ee ugu fiican in wax la barto, luuqad ha noqoto ama cilmi kale ha noqoto, waa labada cirguduud, aroortii iyo casarkii. mar walba ood luuqad baranaysana ka bilow dhanka adigu aad jeceshahay, halka aad jeceshahay. haddaad tahay qof arday jecel inuu noqdo dhakhtar, ka bilow dhanka dhakhtarnimada. waxaad jeceshahay ama dhankaad jeceshahay markaad luuqadda kasoo gashid, waxay kuu sahlaysaa barashada luuqadda. dhankaasaad marka hore ka galaysaa, kadibna dhinacyada kalead u leexanaysaa markaad dhankaa ka baratid. habeenkii inta aadan seexan ka hor iyo subaxii marka aad sidaa usoo kacdo waa laba waqti oo aad muhiim u ah. maskaxda wixii la geliyaana aysan ka bixin. 10 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo inta ka horeysa hurdada, wax walba oo aad dhageysatid ama aad samaysid habeenkaasoo dhan wuxuu mirtaa maskaxdaada. aroortii marka aad sidaa usoo kacdo 10 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ee ugu horeysa waxa aad samaysidna maalinkaasoo dhan maskaxdaadu ku jira oo kama baxo. marka uga faa'iideyso barashada luuqadda aad doonaysid inaad baratid. haddii aad tahay qof doonayo inuu luuqad barto aanan aqoonin, luuqadaas oo ah bilow. haddaad bilowdid waqtigaas, labada waqti inaad dhageysatid luuqadda muddo gaaban, waxaad bilaabaysaa inaad luuqadda ay kuu fududaato ood la qabsatid. sax ereyada inaadan fahmin baa laga yaabaa, ama waxa qofkaas mawduuca uu ka hadlay inaadan fahmin, laakiin maskaxdaaday degaysaa, erey way kugu soo duxayaan. waxaa jira muuqaal aan kaga hadlayay hurdada. meeqa saac ayaad u baahan tahay inaad seexatid si aad u heshid hurdo caafimaad leh? waa muuqaal runtii waxtar leh, aan filayana wax badan inaad ka faa'iidi doontid. linkiga hoos baan kugu reebayaa qaybta sanduuqa tilmaamaha. waxaad ogaataa 1000 sano haddii aad noolaato oo maalin walba wax barato, ilbiriqsi walba aad wax baranayso, maskaxdaadu ma ahan mid buuxsamaysa. waxbarashaduna heer ma lahan. marka ha dhihin haddaad tahay qof weyn, anigu waan weynahay wax ma baran karayo ama luuqad ma baran karayo. da' walba oo tahay doonitaan dhab ah haddii aad u hayso waxaas, waxaa hubaala inaad baranaysid. marka wax da' gaara oo ku xidhan waxbarashada ma jirto.
maskaxduna ma ahan mid buuxsanta. waalidiinta qaar waxay sameeyaan ilmahooda yarka waxay geeyaan waxbarashada iyaguna ma yaqaanaan magacooda si loo qoro. Ilmaha yarka ay waxbarayaan baa wuxuu ku gaarayaa heerka tacliinta ugu sarreysa inta iyagu guriga iska fadhiyaan. Iyagu waxay aaminsan yihiin adigu waqtigii wax la baranayay waad ka weynaatay. Ilmahaagu intuu baranaya maxaa kuu diiday aadba inaad baratid. Iskuul ha aadin, meel fogba ha aadin, gurigaaga laakiin ku loox jiido. Kolba in yar ku dhigo, kolba wax yar ku baro, cilmiga ma aragtay, kolba in yar ku qaado. Iyo tan ugu dambaysa oo ah jacayl. Waa inaad jeclaataa luqadda aad baranaysid si ay kuugu fududaato. Maxaa yeelay jacaylku waxbuu fududeeyaa. Meeqa qof waxba yahay oon weligiiba islahayn labaad isku aadinaysaa uu jacayl ka soo saaray hal abuur ama abwaan weyn. Markaad luqadda jeclaatid waxay kuu sahlaysaa barashada luqadda inaad kow jeclaatid, laba inaad aamintid. Adduunyada wax aadamaha ku adag ma jirto. Dunida waxa yaallo oo dhan kownka Ilaahay wuxuu kuu fududeeyay adiga. Aamin inaad baran kartid. Waad baranaysaa. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka heshay. Haddii aad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto, subscribe taabo, wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya qaybta hoose faallada noogu reeb. Waa inoo muuqaalka kan xiga insha Allah. Nabad iyo caafimaad baan idinka tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.